Ku dhawaad 10 ruux ayaa waxyeello ka soo gaartay qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo maanta lala beegsaday xero ciidanka xoogga dalka ay leeyihiin oo ku taala dhabarka dambe ee xarunta xisbiga ee Stadium Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Goobaha caafimaadka ee gurmadka degdega ah ayaa xaqiijiyey in sidoo kale ay soo qaadeen dhaawacyo ay ka soo qaadeen goobta uu weerarku ka dhacay. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan qaybta 27aad. Dhanka kale, Al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday ciidanka dowladda, waxaana ay sheegtay in qof ka mid ah dagaalyahanada Al-shabaab oo watay gaari waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey uu gudaha u galay xeradaasi. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka dowladda, walow ay halkaasi ku dhinteen dad aad u fara badan, qaar kalena ay ku dhaawacmeen oo ka tirsan militariga Soomaaliya.